muddo ku siman dhowr iyo 10 sano ka hor waxaa dhalinyarada magaalada Huurshe ay u jihaysteen sidii ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen hanaanka horumarinta waxbarashada magaalada Huurshe. Halkan waa dugsiga hoose dhexe sare ee Sheekh Yuusuf waxa uu sanadkan kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe. Maanta waa maalin kale oo ardayda farxad iyo raynrayn u ah. Waxay diyaar u yihiin in ay doortaan halyeeyigii ama halyeeyadii ardayda ku hogaamin lahaa hilinka iyo hayaanka toosan ee waxbarashada sanadkan. Waxaa howlkan gudihiisa ku soo wada xaadiray dhammaan ardayda dhigata dugsigan si ay u codeeyaan. Waxaa tartamaya ku dhawaad 7 arday halka 2 ka mid ay noqon doonaan gudoomiyaha ardayda iyo ku-xigeenkiisa. Mid kasta oo ka mid ah tartamayaashan waxa uu rajeynayaa inuu guuleysan doono waa kuwan iyagoo sheegaya hadafkooda waxqabadka kaga aadan dugsiga haddii la doorto. mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka codsanayaa inaad ii doorataan xilkan. waxaan isku arkaa inaan ahay qof ku habboon qabashada xilkan. waxqabadkayga haddaan ka hadlo waxaan ka shaqayn doonaa isdhexgalka iyo wada shaqaynta ardayda. waxaan xoogga saari doonaa cagaarinta iyo qurxinta iskoolka. waxaan ka jawaabi doonaa cabashada ardayda iyo xaaladahooda wixii markaas ay soo gudbistaan. magacaygu waa Zakariya Cabdinuur Sheekh Yuusuf kamid ah ardayda dhigata iskuulka Sheekh Yuusuf una sharaxan xilka gudoomiye ku-xigeenka ardayda iskuulka Sheekh Yuusuf Primary and Secondary School. waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa inaad igu sharaftaan codkiina qaaliga ah haddii aad ii doorataan xilka gudoomiye ku-xigeenka iskuulka ama ardayda waxa aan qaban doonaa insha Allah qodobadan soo socda. Number 2 waxaan la shaqayn doonaa gudoomiyaha ardayda si hufnaan iyo ku dheehan tahay cadaalad. waxaan ka shaqayn doonaa isdhexgalka ardayda iyo macallimiinta. Waxaan soo gaarnay gabagabada doorashada. waxaa haatan la tirinayaa codadka. Fadhi Cabdifataax Ahmed Abdullahi Fadhi Cabdifataax Fadhi Cabdifataax Fadhi Cabdifataax Fadhi Cabdifataax Ahmed Abdullahi Fadhi Cabdifataax Salmaan Macalin Xasnuur Fadhi Cabdifataax Fadhi Cabdifataax Fadhi Cabdifataax Ahmed Abdullahi Fadhi Cabdifataax Fadhi Cabdifataax. Gudoomiyaha guddiga doorashada ardayda iskuulka Sheekh Yuusuf Caarif ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada. alxamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. meesha waxaan ka rabaa inaan ka soo jeediyo natiijada gudoonka ardayda maanta waxa uu tartamay xilka gudoomiyaha 3 qof oo kala ah Fadhi Cabdifataax iyo Ahmed Abdullahi iyo Salmaan Macalin Xasnuur. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka waxa uu tartamay Zakariya Cabdinuur iyo Sayyid Cali Abdulqaadir. midowga ardayda maanta waxa noqday gudoonka koowaad Fadhi Cabdifataax. gudoomiye ku-xigeenna waxa noqday Zakariya Cabdinuur. dhammaantood waxaa leeyahay hambal yaa leeyahay. marka ugu dambeyn waxaa hadal jeediyay gudoomiyaha naadiga ardayda iskuulka Sheekh Yuusuf
Fatxi Cabdifataax iyo gudoomiye ku-xigeenka. haddana insha Allah waxaan gudageli doonaa sida ila shaqayn lahaydeen gacmo wada jir bay wax ku gooyaan baa la yiraahdaa inaa wax la qabatiin baa horumar ku gaari karnaa. dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad codkiina ii siiseen waana ku rajo weynaa run ahaantii inaad dooran doontaan waana ku seexanay waana ku soo toosayay waa idinkaga mahadcelinayaa sida ay doorateenna waa idinkugu shaqayn doonaa haddii aan la idmo. Qaar ka mid ah ardayda ayaa bogaadiyay gudoomiyaha cusub ee ardayda iyo ku-xigeenkiisa iyagoo xusay inay si heerkeedu sareeyo ula shaqayn doonaan. ugu horeyn waxaan salaamayaa ardayda qiimaha iyo sharafta leh halkan isugu timid macallimiinta maamulka iskuulka guddiga doorashada ugu horeeya gudoomiyaha iyo ku-xigeenka. markaas ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa u hambalyeeynaya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaana leeyahay sidaan idinkugu codaynay baa idinkula shaqaynaynaa waa idin garab taaganahay. waxaan anoo ka socda ardayda codaysay u hambalyeeynaya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. Xuseen Cali Xuseen warbaahinta qaranka magaalada Hurshe.